They don't look the person, they must do their work without fear and favor. qofku markuu mas'uul yahay ama dad u dhaxeeyo waxa ka mamnuuca inuu ku shaqeeyo baqdin la'aan iyo macruuf la'aan iyo qaraabo. They don't look the person who is strong and who is poor. Wa inaanu eegin qofka xooga weyn iyo ka daciifka ah. They don't look the color and tribe and religion. Wa inaanu eegin qofka jinsigiisu wuxuu yahay qola tahay diintiisu waxay tahay waa inaanu midna eegin ka sida loo waaninayo waayo waa nin kasta oo mas'uula oo xil loo dhiibo weeya. They don't look bukuleeyahay the person who is rich and who is poor. qofka taajirka cadaaladu ma ogola inaad wax xoolo leeyahay u eexato. cadaaladu ma ogola qofka faqiirka inaad tiraahdo kan iska dhaaf waa faqiir waxba ha u qabanin. anigoo ka duulaya seminaarka aan idin akhriyay oo daba dheer waxaan anigu dadka u ballan qaadaya awalna ugu shaqaynayay sinaan cadaalad soo dhaweyn u adeegis ilaa qoyska marka laga bilaabo ilaa heerka qarannimo yaan anigu ballan qaadaya haddii alla ka dhigo. taa waxaan ugu dhowaanayaa cadaaladda aan idin sheegayo waxaan ugu dhowaanayaa ilaahay sidaa oo ay tahay anigoo sidaa ugu diyaar garoobay xagga markaan u leexdo mucaaradnimada. adduunka mucaaradadu way jirtaa laakiin mucaaradada qofka wax caaridaya waa inuu u yeelaa wuxuu qofka ku caarido. fula waxaa la yidhi xantiisa waa moog yahay. markaan xantayda dhagaystay dadkii iga soo horjeeday iyo kuwii meel kasta joogay 3 kalmadood baa ii soo baxay oo la igu lugay u hadalhayo. mid maxay ahayd xariir reerka mana ooda mana dhaansho. waxayd cilad la soo qaatay xariir reer oodaya ayaa arkay markaasuu mid kale yidhi isagoo dhaan wada ma aragta cilad bay noqotay xagga ka soo maaxatay. qoladii mucaaradaya waxay yidhahdeen ninkani waa nin weynoo da'aho shaqayn kari maayo. qoladii sidaa tidhiba anigoo waxooga qoladii sidaa tidhi waa aragtay anigoo exercise samaynayo orday